aniga waxaa ku dhashtay UK hooyadii anoo yaroo 3 bilood jiro ay dhimatay kadib habriira ay soo korsatay oo hooyadii mataanteeda ah kadib habriira waxay tiri Saudi Arabia aadayna gabar walaasha waxa lagu aroosaa Saudi Arabia maalin iida soo bixi doona maalinta ka horeysa waxay igeysa meel oo carwo ah waxay tiri dhar oo aad diyaarad ku raacleed qaado marka soo qaatay gooni iyo shaatiga iyo tarxadii iyo markaa kaweey wax markaa isku soo majgareey islay wixii iidana soo qaadatay markaas waxa habriir maxaa u soo qaadanaysaa waxay tirna caadi waayay tir iska dhaaf adi kadib diyaar kala soo raacnay waxa lagu leeyahay marka Sacuudiga sii socnaa Sacuudi la u soconaa ilaa ana Sacuudi iyo Soomaali ma kala ka saayilan wiligay wadanka kama soo bixin Sooma Soomaaliya markay keentay airport markay keentay habriirtan kale oo wiilkeeda aroos doonay gacanta iga saartay geeska iga istaagtay gabar kaleeto waxaa u jeedaa dharkii ana agishna loo dhiibaayo wixii ana waa arkooyaa gabar kale meelay gashay dharkii way soo xiratay dharkaan ma laga bixiyay maya kuwii ay wadatay kuwii ay iiday marka ani gadanay amal ay gadato wa dharkii way ka ay soo gadanaysa gabar kale oo adiga kula faclo xiray waxa dhan waxayna qatabo surprise amal ay la qatabo nina ku arooso iyo waxaas iyo ma iga dhacdhacsaneenbo saasoo markii ninkan iska heestay wiilkan ilmo iga dhalaayay aniga waxa suubiba wax kale ma kala kaseenin kolay habeenada kamid ah banaanka ii soo saareen marka asiga banaanka ii soo saaray wiilka banaanka ii soo saaray marka ilmo badan u dhashay 12 u dhalay 2 iga saqirtay 10 ay joogto waan Ridwan Isaaq podcast fadhina mar kale soo jeedin waxay hor fadhido gabar Soomaaliyeed waxay ii sheegtay sheeko aad u xanuun badan ku dhacday waxayna rabtaa inay noogu sheekayso sheekadaas bilowgeeda ila dhamaadkeeda sheekada si ii sheegtay ayada waxay ku dhalatay UK laakiin ayadoo yar oo 10 sano meelaha jirto ayaa Soomaali intii la keenay airport looga tagay marka sheeko aad u xanuun badan waay asal dhageysan doonaa ka hor inta bilaaban channel subscribe ku yahay aduu ku yahay aad ma santahay wali aduu ku ahaan laakiin subscribe sar aad ma santahay soo dhow waa dhawahay Ridwan Isaaq waa ma santahay walaal magacayga waa Leila Aadan Xasan aniga waxaa ku dhashtay UK hooyadii anoo yaroo 3 bilood jiro ay dhimatay 3 bilood anoo jiray dhimatay kadib habriira ay soo korsatay oo hooyadii mataanteeda ah mataanteeda saxda ah أنا هو إذا مقعد وآمنة جمعالة علي حبرتي مقعدنا وعاش جمعالة علي تداول سنة وحقصونا لهولند 6 سنة مياه مثل 2 سنة خياستيس وحقونا لا إنجليزكا كدب وحي برنامج إيسو ديكستي أو إن عادة سعودي عربية مرك هوري هذه UK أقول لك صح هذا 3 bilood jirtid ma ogeen hooyada waa dhimataa lagu dhahay marka waxa ku soo korisay oo indhaha ku qaadatay waxa waa aad la joogtid habaryarta waa hooyada mataanteeda 3 bilood UK joogtiin kadib goortay aad rabtiin Holland maya de Holland waa aadnay kolay Holland marka ida Holland nolosha waxay rabtay in Holland ka bilaawato kolay Holland waa ii kaxis anoo markaas waa yaraa waqtigaas aadna hadda ma dhihi karin maano ani so waa wada gurtiin wada baxdeen Holland ay dignay Holland tagteen sax cabaar soo joogteen 7 sano iskool ka dhiganay 7 sano joogtay iskool aaday nolosha waa socotay marka adiga iyo markaas yaaba aniga habriir iyo ciyaalkeeda odageeda waa wada joogteen waa wada joognay kadib waxay tiri Ingiriiska u guureynaa laakiin marka ka bixinaayo Ingiriiska ka bixinaayo magaca gabadheeda ay rabtay inay igu soo bixiso ani magacayga weydiiday inay iga soo bixiso UK Holland yes yani markay aadiseen UK ku laabanaysan sheegaysa waxay ku tiri magaca gabadheeda sheeganaysaa magacaaga ma sheeganaysid gabadheeda markii iyo ilmo kale oo ida la dhashteen waxay raaceen diyaarad aabooday raaceen ani iyo 2 iyo 3 cunug kale tane waxana soo saartay metro waa trainka dhulka gabadheed magaceeda kule aan ku socday kadib markay i keentay iskool iyo wax baa la geeyay iskool waliba fog New Leicester City
أنا waxaa ku noolaa Leicester City xaafadda Morris Road 15 okay adi marka UK waxa kaga dhalatay Leicester markii hore maya London okay laakiin markii dambe Central Bank ha London okay marka Holland ka laabatayna marka waxaad tagteen Leicester yes kadib iskuul aad ingay hadana school ma ahayn ilmaheeda ana schoolkay gaar u ahaa aniga school laba bas la raacaya ana dhiganaa ilmaheedna schoolka xaafadda agtiis la dhiganayeen so wala ana taas ana ma fahmi karin marka ana waa yaraa soo ma okay ana kaar school haystay oo qorta igu surnaa iyo kaar oo baska ku raacaya labada bas ku raacaya okay haystay iyo kaarka cuntada marka lunch time la taagan yahay dhiibanayo oo cunto lagu siinayo okay waxaas information kaas dhamna boorsay igu jireenbo okay marka iskuul aad dhiganaysaa guriga la wada joogaa guriga la wada joogaa waa si weynaanaysa adigana marka dugsiga Pakistan aadayay banaanka waa ku dhedheeleynay okay kadib hawreer waxay tiri Saudi Arabia aadayna gabar walaasha waxa lagu aroosaa Saudi Arabia waa ka diidaane marka ka diidaan horta gabar saaxiibtay gurigeeda u dhuuntay marka u dhuuntay dhowr meel aan maqanahay way igu imaatay hadda beenta umaleys waatana walaasha la hadal gabar waxay tiri af Ingiriis igu tiri ana Samar Aadan Xasan ahay walaashaada ahay Saudi Arabia lagu aroosooyaa ada imaanin arooskayga ma dhacayo oo ooynayso alula hadashii yaa kula hadashiinay habrira ila hadashiinayso okay kadib aniga marka gabadha ma kula dhalatay ma jirtay mise gabadha way jirtaaba gabadha in la iga weynaa jirto isku aabanaxnay laakiin ayda taa in kala ma ogeyn ma ogaa kara wiliga gabadha islama hadlinbo just gabar lagu dhiibay walaasha waa la waa gartay saas markaas maalin iid bari amal oo iid maalin iid soo bixdoona maalinta ka horeysa waxay igeysa meel oo carwo waxay tiri dhar oo aad diyaarad ku raacleed qaado markaa soo qaatay goona iyo shaatiga iyo tarxadda iyo markaa kabay wix markaa isku soo majgareeyay islay wixii iidana soo qaadatay markaas waxaa dhahaa wiil maxaa u soo qaadanaysaa waxay tirna caadi waayay tir iska dhaaf adi marka qaf markaas oo waarid la socdo hadal kaleed animaba ii banaan maano يعني أدي مال shopping aan ugeeyay waa soo adeegatay صح dadkaaga dooratay صح ayda ku doortay inta dooratay no ana doortay kadib wixii ana dooranay idina soo qaadatay oo libis oo ayda ficeeda ah mise maya oo wixii ana soo qaadanay amal oo goonada iyo shaatiga iyo tarxadii iyo surwaalkii iyo wax walba everything oo animaad agishanay amal okay ana waxaas ana hooga ka yaaban aadan xasra caadi waa size-keeda may qaadinaysaa oo noocaaga oo kala ah mise ifahmsiintaas isku dharki inay saas ana ma kala ogaa karin magta wixii ida gacan ku hayso laakiin isla dharki inay yihiin aan waa arkay waaba ka yaabnaa xoogaa ana tuminkaas oo iga taagan oo iska yaaban waxaas kale walaashan oo lula heshiiye ama qof Sacuudi joogtay waxaas u wadaa okay qalbiyan ahaan ma isoo galays maahan oo qof kala booska lagu bedeli karaa bis maalin iid asoo oo meel iid oo Soomaali marka meel iid isku imaataa oo meel weyn oo iid Soomaali isku imaataa oo dabaaldega iid lagu dhigto meesha anikoo joogno oo dhowr saacad falaydka dhimanahay ee dhaysa meeshaas iid ka tagaynaa dharkaaga kuwa la soo gadanaysa diyaarad ku raacday hore u soo xiro kuwaas la toos ugu iid dharkaada soo xirtay aniga boorsi waxa wax ima soo xirin wax boorsi yara wata kaararkay wixii la igu jiraan bis information kala xataa igu ma jiro iyo number oo asxaabteyda ah oo bugnood igu qoran tahay bis marka meesha asaas u joognay wax yar kadib waxay tiri haya habrir xiliga waxa la gaar ah falaadka aad lahayna in ilmaada iyo odaygeeda wax meesha isla joogno way soo wad gacanta iga soo waday gabar waxa jirta marka habrirtay dhashay oo habrirtay dhimata dhashay oo iidan loo soo sheegay in habrir meesha iga bixi rabto oo gabar kale habrir ay isku fiican u soo sheegtay oo gabadha mishinkaas loogu waday gabadhaas ma ka gaari kartaa gabadha marka London ay ka soo socotay hadday Leicester City meesha day imaatay waa gabadha xiligaas waxaa maqlay inay walac ahayd ana sida aan information aan laga soo gaarsiiyay meesha ku dhacday aniga kitab habrir waa soo kaxaysay Dubai ay keentay inta ay yara hurdaayay okay marka waa isdiyaarsan fikirkaas ku diyaarsan diyaar soo wada raacday adiga niideeda waxa lagu wadaa Saudi Arabia sababtu socotid waxa waay inay Saudi Arabia walaashay oo la aroosa ina u socdo okay wasoo labistay waa faraxsantahay waa faraxsanahay diyaarada soo wada raacday kadib Dubai ay imaanay Dubai marka imaanay inta kale diyaarada ku hurdaayay waxay soo bisay wixii cadeymana boorsay ku jirto makeup ka bisay idaaft inta kala cadeymanka boorsayda gashishtamay ama meel la gelis ana ma ogiye ana marka isma dheheen magta habrirtaada wax baa ka bixinaysa isma dheheen
waa soo kacay diyaaradda markaa ka soo deganay oo meel oo diyaaradda boqol xisaas socon waxaa arkay dasbank ida wax ku ridayso wixii aan masii tixraacin marka hawar maxay tahay waxa dasbank ku ridaysaa markaas waxay tiri waxba saas ma ahane ee nabad wixii way daboolaysaa maano okay aniga wixii caadiya ka dhigay waa soo baxnay 3 maalin camal Dubai transit ma ku ahayn 2 maalin camal waa joognay kadib diyaaradda Soomaaliya soo raacnay 2 maalmood aan Dubai maxaa sameynaysaa wala 2 maalin habaryaal oo Dubai degan xaafadooda ma kulena geys iyada ma program Dubai kala heed kula ana xaafada habriira liigay ani okay kadib diyaar kala soo raacnay waxa lagu leeyahay marka Sacuudiga sii soconaa Sacuudi la u soconaa ilaa ana Sacuudi iyo Soomaali ma kala ka saayilan wiligay wadanka kama soo bixin Sooma okay Soomaaliya markay keentay airport markay keentay habiritaan kale oo wiilkeeda aroos doonay gacanta iga saartay sukarta diyaarad soo degteen sax airport la dhingay sax airport wuxuu noqday airport ku yaalo Soomaaliya ha ma fahamteen inuu yahay marka mise Sacuudi oo malasaw wili ma fahmin ana diyaaradii waa degtay airport aad joogtaa ha gacanta ku soo qabatay kadib habirta gacanta iga saartay habreer kale maama Soomaaliyeed lagu dhiibaa u jeedaa mise habreerta waa taqaan habreerta waa ay tiri ana ma aqaani laakiin habreerta waa ay tiri naaga lagu dhiib ha okay geeska iga istaagtay gabar kaleeto waxa u jeedaa dharkay ana agishna loo dhiibaayo wixii ana waa arkooyaa gabar kale meelay gashay dharkii way soo xiratay dharkan ma laga bixiyay maya kuwii ay wadatay kuwii ay iiday marka ani gadanay amal ay gadato waa okay dharkii way ka oo dharkii waa ka ay soo gadanaysa ha gabar kale oo adiga kula faclo xiray ha kadib kolay waan waa cabsaday habrir maxaa waa sidaan iyo ani intay joogaa iyo ma aan waa ka daw imaanahay habrirtaan si raaci itir sax guriga oo walaasha iida ku geynaysay habrit saas iga tagta ani habrirtaan kala gacan igu soo dhigtay jilbaabi waxay wadatay oo kale oo gooni ah way ii xirtay baawra i soo saartay xaafadeeda i keentay habra xaafadeeda aad joogay Soomaaliya joogaa kadib waa ooyey af Soomaaliya ma ka saynin kole habrir af Ingiriiska xoogaa u bilaabnay intay joogaa habrirta kole waa ku soo celisay tiri Soomaaliyana joogtaa habrirtay marka habrir xataa marina hooyaa dhahay hooyaday ma joogtee qaftaas mar hore laabatee meeshaan idab u joogo bis waxaa rabay sidii ku soo baxsan lahaa sidii wax ku qabsan lahaa anoo isku dayaayo ay wiilkeed igu dartay maamadii liigey wiilkan inamaa bareeda meeqa jirta markaas 13 sana jira 13 sana qof lagu daray ha waa gart 13 sana wiilkeed ay igu dartay wiilkeeda marka abuse ugu jiray hada rabo inaa banaankii meelaha hada aado hada rabo inaa family dadkayga inaa raadiyo wuu idil jiray marka adi family-ka qofka ma taqaanid marka family-kay anad qofka ma aqaanaashaas gabar oo lii sheegay bisaaba ka aqaanaabo meel loo raadina ma ka saay inay afgooy degan tahay marka dambe aan maqalay okay guriga lagu geeyay qofa lagu daray guriga lagu geliyay naaga taa lagu dhahay meel u baxday ma taqaanid maya qofka saas ku galayno habreertaada kale habreertay waa wiilku lagu daran maamada dhashin habreer kale waa habreer kale waa adeeryaal iyo family kale dhinaca abaha ma taqaanid ma ka saay waa iska ogolaatay marka gurigaas gashay maxaa diidi karaa maxaa ogolaa karaa xilligaas la joogo aniga yaaba meel aan ka seen joogo ma meelaa ka seen ma joogi qofka wuxuu wax ogolaa karaa diidi karaa marka oo meesha oo yaqaan meesha uu ka saay maahno oo nolosha markaas uu galaa inuu fahmi karo xataa ninka ma kugu darnay waxaas xataa aan leema weydiin ani waxa dhan waxayna qatabo surprise amal in la qatabo ninaa ku arooso iyo waxaas iyo ma iga dhacdhacsaneenbo saasoo marka ninkaan iskee heestay wiilkan ilmo iga dhalaayay aniga wax kale ma kala ka seenin kolay habeenada kamid ay banaanka ii soo saareen marka asigaa banaanka ii soo saaraya wiilka banaanka ii soo saaraya okay marka ilmo badan u dhashay ha 12 u dhalay 2 iga saqiirtay 10 ii joogto adoo banaan aadin ehel kale aadin oo guriga iska haysatay guriga dhexdiisa ku dhalay xataa almost guri la loo kale kana isbitaal ma geeyay wiliga
aha ilmaha marka say u kala weynayeen marka isku nuug walaa isku nuug leh waa saas ma kala weyn aha suu kula dhammaaya marka ninka walaa ninka nin balootis kale waa oo haddaa hadlabo oo ha ila hadlin haddaa ila hadashidne korkaaga ka arkee gabadheeda curdaa ila mid taa ade oo i garaacayo jirdil kuu geysan jira jirdiloo ii geysi jira qof kaa celinayan male qof iga celinaya malahan aha dhowr iyo 10 ilmaa u dhashay haa ma taqaanid marka waxa la suubinaaday ehel kale ma lihid milihiba yaa i bar ehelkay qof lii baray malahan qof iska indha xiran oo wadankay kasayn la keene maxay qabsan kartaa oo guri la geliyo ilma oo laga guri dhalay la geli ilma laga dhalaayo iska haystaan dhowr waa la iska heystaba qof ila heystaaba iska ahaaba sida naag maanta oo nin qaba camal milila dhaqmaynin baani ina dhaqanka khaldanta ana waa u jeeda laakiin meelaa wax ka bilaawda waa waaye see kula dhaqmi jireen walaa xataa cuntada xataa waa liidii jiraane maamo oo raxweyne ah oo ina aabeen aabe iska leenahay ayna aada xataa agteeda wax kusoo cun jire si markaa baahida iga tan badato waa dhuuman jirta waa dhuuma jire maxaa hore ugu sii tegi weysay ugu soo laabanaysa mise meel aadan ma taqaanid meel aad maba kasay meel aad qofka markuu meel aad kasay leh horta ma baxaayo qof iska baxaayo oo meel u socon kasayn dhibaato kale waa soo ma markaas kadib habeenada ka mid ah wuxuu suubiyey guri iga bax camal ilmahayga aniga naga tag inaan qofka alkulista waxbaa ka tusistiinka soo maahan waa tii ana ku soo bixi lahaa marka qorta iga soo qata banaanka iga soo tuure ana maamadaas bisaa ka maamadii u tagay maamad dariska eedeynaya haa maamad cuntada ka cuni jirtay haa u tagay hawr anasaan ali soo galay dhibaatay anasaan waa wiliga dhibaatay kaaga ma sheekeen waa baana wax isii ka mamu ku dhihi jirin markaas waxay tiri had aad see rabtaa aan waxa dhahay meel alaal meesha aa ka dacwo karo oo dhow aa rabaa inaa lii geeyo wax aqoonsi iyo waxna ma wati marka waxay tiri gabadheeda hadda mar dhow imaatay oon rabta inay ku laabato meesha ee gabadheeda jidkaa mala maraysaa ma raacaysaa waxaa dhahay hayaa habaryar haye sidaas waa rabaa laakiin hadda guriga inaa laga soo raadiyaa ka cabsanaa meel amin igey waa i kaxaysay meela igeysay oo madiina ka baxsana igeysay marka igeysay gabadhiyaa meesha igu imaatay waxay tiri marka beris waxdiyaa israaciina gabadhan khayr alaasiisaas ii soo waday jidka idaa isoo marsiisay haddana xaafadeeda aaba joogaaba maanta oo waxay tiri intii aa wax ka helaysid oo intii aa caawinaad aa ka helaysid ana il noolaa kartaayo gabar soomaaliya oo maanta dhiban aad tahay saas waa marka soomaali lagu keenayay goorta eed sanadka ma xasuustaa sanadka 2001 markaa soo fakanaysan hadda waayba bishan waa 25 sano waa marka inta lagu haystay ee guri lagu haystay wow inta guriga joogtay oo kale adi maxaa dareemi jirtay marka like nolol qaldan ku noolaha dareemi jira oo nolosheeda aysa saxsanayn oo ilmahaas aa ku sabraayo wax ma karin jirtay oo jikada ma ka shaqayn jirtay oo haa maxaa wax u kari waay wax kariska meesha ku barta baano wax karis oo weliba oo qasab ah oo waa karinaysa mana cunaysid camal qof wax kari oo cunaynin camal aha yani cuntada lagu karinaya mana cunaysid mana cunay okay marka habrirtii dhashay ninka ilmaha u dhashay may joogtay ayadana way joogtay laakiinse kow factor way joogtay markii dambe habrirta ana isoo celinaysay aleen talyaani u gaday way kaxaysay saas talyaaniga loo geeyay habrir saas iidan jarmalku ku gashay waa karti marka jarmalku way ka imaa jirta marka fiir wax weydiinaa maamadii dib looma raadin miya oo maamadii ku keentay ee habrirtaada yaa dib u raadinaya adiga anigu mar waa wacay habrir dhibaataas ay haysto habrir ana abuse lagu hayaa habrir hadda xataa Soomaali isoo celis dadka ha barato hadda aniga kulay habrirtay hadda waa bartay wiilka habrirna hadda qab hadda qof ilmo dhasha ahay inay celisidaa rabaa aniga waxba kaama ogiye mana ku aqaaniye ee nambarkay ina wadgeli yaa taa adi waxaas ay igu jawaabtaa ma ku aqaana ku leedahay marna taleefanka maba iga qabanaynin okay wiilka hooyadiis ma laadash
wiilka hooyadiis iidaaba program qofkan laba damaano inaa Soomaali lagu haayo aan habritaan kala dacweynin aabo beel iyo adduunyo loo siinayo ciidan okay وين أوجد مرك ويل كذا أبيوس كوجه هيس أنت أساسا وإذا بدي ما أبيوس أيوه هيس ما حق ويل كت كليمة إذا بدي ما إذا ما كي ما تجمعك بكي ما تو مسقول ما قال كرت إيو عننا وكرنا يسمونه عنيست إيو قفك إذا كمركي أو كبرو على شيء صباحي لو قدرن سيامانو جريرة تاي إيو ساسي دي جرت أوكي واحد الهدايا مركي الوسود الجيل برك لو كاني dar kaloo la soo gaday gabar kaloo loo xiray oo la wadaa jirtay maxay ahayd markii macnaheedu inay gabadha kale waxay rabtay inay iida magacay ku waday rabtay oo lagu celiyo soo gabar yar kala magacaaga lagu kaxeeyay sax anna Soomaali lagu soo celi maxay u sameynaysaa ma gabareeda ahayd muqallasada ee habrartu ku soo celisay muqallasad waa ilaa hadda markaa walaa ana hadda ma sheekar ilaa hadda ana ma ogi sabir dad badan ay soo waday aan waa maqlay oo dhinaca ninkeeda ay soo wada jirtay hadda marka waxa tiri markii ugu dambeysay adoo ninkaaga 12 carruur u dhashay habeen ayadoo tahay banaanka ku soo saaray banaanka ay soo saaray sabab uu ku soo saaray sabab ay soo stinkaa tusay ilaa hadda ana waa ka yaabana wax banaanka ay soo saaray muu ku furay ima furay iga tag ku dhaal iga tag ma ku rabay meel kale aad garaweysa marka waxa aad dariska gabadha dariska la aad maamada maxay ku dhaxday maamada waxay tiri dhibaatada marka uu sheekay waxay tiri habar micna ma lahan qof dhibaato badan ku jirta tahay anay maanta islaanima ku caawina gabadheeda hadda dhow imaatay gabadhaasna ku dara jidkaas isla mara marka intee meesha lagu daraa yani intee rabaa baa tiri أنا كينيا ربا بحيث ميلا وجودو مات أسافرت أكيد كرتت كينيا أصوده وأمات باسبور الآن شرعي الآن أقل كرتت ساسا كين اللي وصو كحي خرج كده إيكا إيجا سودي بين أوكي مركا قبل يكون وصو درتي كنت قبل نوع كل جوت قبل نوع أبا سودو ودو رضوانا ورتين أولا أبايضا أرميه هذا كهلو ورت إيميشونا أهكستوير مفانتي قلبي جاي حنونايو gabadhan arrimaheeda horta dariskaaga waxaa la yiri magta ilaa lama lagu degsan waa sax marka hooyo waxay iigu sheegtay waxay tiri abaayadan way dhibanta hooyo meeshaasna aad taqaanid marka haddaa sii dhaweyn kartid xitaa waxay tiri dhaweeyo wadankaas horta isla taga ha kula noolaato haddaa dhimatidna hadda waa kaasaa haddaa isla noolaatiinne gabar Soomaaliyeed oo muslimiin waaye gabadhaas dhabdhe marka hay waayaan dhahay abaayo sidii inta iskugu soo raacnay waa is wareysanay horta Ridwaano waxyaalo badan horta iyada had aysan sheegin oo iloosan tahay jirto korkeeda horta jirdila ku yaalo waayo hadeer ma feedi karno Soomaha ma jirdil garbaheeda meelahan oo kale marka inta tustawrayaa saan ku galay waxay tiri hawraraasan ii gashay jirkaaga ma dhaawac badan leeyahay dhaawac ayaa ku yaalan garabka ugu daranba meeshan habeen inay qabatay iga qaniintay wax iga fujiyna waayo habartaas teewa habarta tan wiilkaad igu darays maxay ku jirtilaysa waxay ii jirtilaysay kule marmarka qaar aniga qof bin aadan ah maano ana cuntaas maanta ana ma kari gabadheedaan guriga ku noosha idan ilma haysato ku all family gada wada karinaysa ma kari oo maalinta gabadhaad maalinteed ha karso ana maalinta a kariyo saas u hadli kartaa aman garaafa xataa ayaa madax iigu kor jibisay cunug yar xataa naaska siinaa xataa waxaa la dhihi jiray maanta naas ma siinayso doo u yaadii kalaad caana siisanaynaa meeshaas idab fadhi wax aysa iigu suubanin ma lahan qof kaa celinaya ma qof iga celinaya cida guri u xiranta ayaa qofka celinaya qolkaas ma kama soo bixi kartid la dhihi jir marmarka qaar xataa musqushaas ma soo aadi kartid iska ilaada dhaawac iyo maxaa kale yani dhaawac iyo waxaa ku arkay stressyo badan inay leedahay ani arrimahayga rabaa inaan inta ka tagaa rabaa meesheedina ku laabtaa rabaa dhibaa i haysto adi qof oo stress ku furan way ooynay maanta oo dhan habeenkii ma hurdo isbitaal geeyay xataa daawooyin hurdo ku seexataa habeenkii si kale uma seexan karto marka dhaawacan badan iyo dhibkan badan intaas 25 taas lagu geysanayay si ku saameysay noloshaada walaahi ina qof kili ina ahay oo nadad lahayn عمل عبد الرحمن مهنو خف بكرب كي تجنين صح
sidaasaa dareema aabbaha weligaa ma arkin adi ma arkin hooyadaana maba arkin 3 bilood ay ku 3 biloodaa jira intaa sometimes waxaa lagu sameynayay intii lasoo buriyo banaanka iska fadhiisan jirta way oyne maxaa kugu dhacay gurigaana layga soo buriyey ilmahaygaa ku jira ilmaheed afka kamaba bixinaysa ilmahaygaa layga soo u baahanahay ilmihii dartooda markaas intuu usoo baxo wuxuu leeyahy hooyadeeda warkeeda ma maqlaysa ayadiyaa soo bixis warkeyga ma maqlay markaasay leedaha haa ilma way ku khasbantahay inay dhahdo soo maaha ilmihii haye waayahay soo gal warkeyga maqal haddaa warkeyga maqli waysan ilidaa kaa saara ilmaha adiga dhashaa lagu gumaysan jiray haa oo lagu leeyahay maxay ku dhihi jireen ilmahan kaa reebanayna mise Ilmaha kaa ma arkaysid maa lagu leeyahay marka banaanka lagu soo saaray oo kale maxay orada iska baxa ilmahan anigaa dhalne saasay leeyihiin hadda waa kasoo cararta marka waa ka soo carar gabadhan ay soo raacdeen xamaray kaa soo raacdo darisku aheedeen xamar iga soo wade intaad joogtiin hadda sax hadda maxaa dareentaa marka inaad ka yar fog tahay oo dhibkii kugu hayn kasoo fogaatay maa dareentaa mise maya inaa ilmahaaga haddana weli haddana qalbiga kaaga taagan ma ilmaha hooya ahay qalbi ilmihii bay iga taagan yihiin laakiin xilligan aan hadda la joogo ilma aa xilligan anaa nafsadeeda u baahan inaa ka fikir mahane ilmaha koley ciddoodaa haystaan maano anina nafsadeeda ku haddii oo lii caabi karo maanta meeshii aa ka imaaday wax leela raadiyo lii celiyo muhiimaddii hadda inta kenya umaad intaas waa hadda dhibka ugu weyn oo jeclaan lahayd in lagaa caawiyo ama lagaa xaliyo maxaa waaye inaa meesheeda ku laabto meeshaa ku dhashtay oo maanta saas liiga soo celiyey oo lii diidan yahay inaa ku laabto waxba loo suubiyey intaasana abuse liigu haye inaa ku laabto laakiin wax sharci ma malgu hayst sawliga wax caddayn ma haystiba caddayntii banamaa iyadaa wada turtay haddaa caddayn aa proof aa haysa lahay bas adaan safaaradaaba tagi lahay mahano wadaad proof ahab hadda haddaa weydiisan waxay ku leedahay kuma aqaaniya kuma aqaaniyaata kuma aqaano cad oo cad mise waxaas ma jiraan oo sharci ma May. haysatid iyo waxbay kuma aqaani weligay gabar leyla aadan xasan lalahay aan lama kulmin ma celinin maxaa ka sheekeynaysaa ay ku leedahay oo isfootay ahaa xataa baasboorkayga xataa waxay iga geliyeen dacwo baasboorka oo soomaali ise wax u dhaceen iga sheekay baltaas abrirtan hadda wiilkaad iqabo ah waxay tiri iyadoo jarmalka joogto ana buufiskeena u furaya markay aragtay waxay tiri sida aan wadanka ugu bixinay rabtay waxay tiri baasboor magac kale kusoo suubso gabar la yidhaa aanisi yaasiin cali migrationka wixii markaa maray baasboor magaca kusoo suubsada waxay tiri leenka aa ku waday leenka waa soco waay camal dhulkaaga nabdheh okay waa iska aamusay 6 sano kadib marka yacni maamadan oo habrirtaada sodadahan waa صح wiilkeeda ku qaba صح Germany joogtaa iyada ها maamadii ku soo celisaa kaxaysa ها أكحس ayada waxay ku tiri dacwada waxba ku sameynaya baasboor soo sameysa ها sidii aan alooti baasboor aad toosan aan subsan aan wadanka ugu bixin okay yani ayada waxay ula jeedaa inay taqaano laakiin waxay ku dhahdaa rabnaa anaga yani ayada waxay ku tiri baasboor soo sameyso ها okay marka waxay ku tiri magac kale ku soo sameysanaa ها si aan magacaas kugu kaxeeyo ها kadib kadib waxay tiri leenka aku waday leenka wuu qarxay camal marka adi magacaaga waxaa la leyla aadan xasan ayada maxay ku tiri marka anise yaasiin cali kusoo qoro baasboor Ha. soomaali kusoo sameyso ها weliga hore baasboor soomaali ma ma sameysana subsan yaa kuwada marka adi ma baxday mise maya qafaa liisoo diray wiilaa liisoo diray okay oo meesha igeeyey immigration ku geey immigrationka igeeyey baasboor soomaaliya kusoo hagaagsatay magacii lagu sheegay ها oo ahaa anise yaasiin cali okay baasboorkiyaa kuu soo baxay Waa soo processkay kuu bilaawday waa liisoo qaad waa lii keena Aha. process wax ay bilowda ma lahanba just baasboorka la soo qaaday just baasboorkaa soo qaada okay hawri arrimihii wax intay ku dambeeyeen ana xataa markaas mata mobail ma haysan wiilkeeda waxaa dhahay hooyadaa ii wacbal bal wax arrimihii wax ka dambeeyaan xataa taleefonkaas xataa oo dad xataa ka wacana xataa asiraale igama ahayn telefoon intii hore laguma ogoleen may mali ogoleen intaasoo sano intaasoo sano 2 sano baa hadda telefoon 4 sano miya 3 sano miya camal lee baqaatay 3 sano ugu dambeysay haa ee 25 sano waa 22 sano telefoon ma haysan ma haysan ba isgaarsiin ma haysan maraa neclay waxaas oo soomaali kala hadlo aa iska haystayo waxaas oo yaryar maahane
telefoon weyn iyo Aha. isgaarsiin iyo waxaas dhan waa laga ilaalinaya okay so wiilkeeda ku tiri hooyo iyo wax Ah, okay waa weydiiyey habar yaraa dhahay broseska iyo arrintaa dhehaysa waa kugu kaxeynayo magac kale baasboorka soo subsa ay tiri habar waxaas waa qarxeen ay tiriye wax ma jiraan wax ma jiraan meeshaad idab u joog stressa iska qaado waa iska niijabay waa iska aamuse kadib 6 sano baasboorkaas makuu dhacyo kadib ayaa haddana isoo bacday magacaaga haddana kusoo subso broses kale kugu wadaa wiilkayga hadda janmarka ila jooga wuxuu kugu wadaa waa xaaskayga camal wiil kaloo ayda dhashay haa oo yar oo kan ku qaba ahayn ka yar haa okay okay aa dhahay mikabili ana rajada waxaa igu jirta inaan lii wado maano ilan aniga foskasku waxaa saaraya inaan baxo noqdo oo abuse-kan waxaan ka abiisku baxay waxaan ka baxo waa baxay migratiinka wixii adiga sidii haddana u marmaray waxaa soo booday fara oo ah gabadhii hore magaca hore aa ku subsaday aani siyaasiin cali marka hadda soo baasboor inaa soo qaadato ma ahayn mise magaca kusoo samaysa ku leeda haa magacaaga kaaga haddana kusoo subso maxay ku tiri kusoo samayso magaca magacaaga haddana kusoo subso oo ah leyla aadan xasan ayadaa ku dhehayso haa kuma lahan baasboorkii soo cusboonaysiisoo soo cesho maya ma ku lahan maya waxay ku tiri baasboor kusoo samayso magaca Ah, leyla aadan xasan way ogtaa marka systemka in aanan ka sayn way ogtaa ilaan sax waayo systemka soomaaliya ana ma ka sahay maahno baasboor wax meel laga maran ma ka sahay kadib immigrationkaa tagtay immigrationkaa tagay leyla aadan xasan anoo ku subsanawo oo wixii marmaray fariyaa fariyaa laga qaaday ani siyaasiinta soo booday kii hore ah kii hore ahaa gabadhaan yee taha leedha qof loo magac suubsanayo waa laga shakiyaa ee maxaa dhacay ana runtaa iska sheegay waxaa dhacay ana saana liigu suubiyo saana lii dhahay oo saana lii dhahay qof rabta inaa baxdana waa ahaa okay dacwada kaaga jirtaa lii dhahay waa isfurdaaminaysaa camal oo ah lacaga laaluushaa dhiibaysaa maano okay ani markaa waxaas anagana laaluushii waxaas inaan haynin waa iskaaga soo tagay meesha ayad maxaa u sheegi weysay waa u sheegay waa igu qosashay qosolka muxuu ah lacag laaluushaysii maxaa u dhibaysaa iska bixi waa u sheegay habir saasaa lii dhahay waa igu qosashay baasboorkaa bis waa habir dacway kaa gashay ha waxaas ii tiri waa igu talgasha maano inaan waddanka ka bixin aan baasboor iyo aqoonsi wax suubsan inay rabte saas baa marka sidii ku halaaba kii sidii baasboorkii hadda dacwoba igu jira yaabaan okay marka noloshii sidaa ku burburtay sidii aadna yani xaalkaas ku jirtay xaalkaas ku jira okay hadda marka waa soo baxday intaad joogtaa waxaa rabta in lagu caawiyo inaan lii caabiyaa rabaa marka waxaa rabta in lagaa caawiyo in haddii lagaala shaqeyn karo meesaa meesha ugu laabto aha marka haddii jiro qof maybe ka shaqeeya safaaradaha ama sheekada intuu dhegeystay uu isleeyahay qofku waxbaa yani ka caawin karaa oo kale maxaa ka codsan lahayd waxaa ka codsan lahaa inuu iga caabiyo sidaa ku laabto meesha aa ku dhashtay sidaa ugu laabto inuu iga caabiyo okay so adig ma waxaa aaminsantahay inaad sharci ka haystay UK-dii ku dhalatay mise Holland ee cabaar kusoo nooleed ilan laba wadan oo kala duwan waay walaa ana markaas ridwaan isaaqo markaas abugood ana waa yaraa ana ma kala sheegi kari taas laakiin aniga gabar habaritay dhashay oo nooleed waxaa ka maqlay inaa sharci badbaadin lahaa sharci badbaadin waa maqasha umale saasay tiri iyada sharci yar may ka wadaa oo waddanka ku joogi karo waddankaas ka marka UK waa ayada markaas meesha joogtay waa ku ogeed miya gabadha xaaf guriga nala joogtay okay ilaa hadda way joogtaa may hadda ma joogto gabadha reereer yeelata soo maha intee jirtaa waa gabadha aniga oo markii la dhahay leyla waa la celin waa gabadhii soo ordaysa waa ingiriiskay joogtaa ilaa hadda ingiriiska joogtaa haa ingiriiskay joogtaa okay habaritay dhimataa dhashay tan hadda i keenta ma dhalin okay marka waxaa ka codsanaysa dadka inay kaa caawiyaan arrimahaas haa ilmahaas inay iga caawiyaan waxaa ku weydiinaa adiga waxaa tiri aabahayga ma aqaani يعني واتقانا مقعهان واتقانا لك سوريا لما كل تلفنا اللي يقول يبجر أبي وح أذير أتقاني لو أصلا هذا الشيء ماله هذه خبير كاتها يعني شنطة شنطة على رحوينا أحد شنطة على موضعها كبر شنطة على موضعها تذكر كوك قال هبرتك واني مرصدة وا هذه هو إذا ضحى واي مرصدة وا هو إذا ماما ساس كوك قال سبرت هذا لما تانا هو إذا لما تان تهذا وا اسكو وحلي وابر اسكو ولا لا واي سما أوكي نيكو قبينا عربي شيكتان كله أنا عربنا ما كل أقارب بارو نيكو قبي هبرت هذا الشيء عربيا عرب أنا هني عرب سومالي معه عرب سومالي I hope in maybe that شيء كذا هذا واحد جيران
ama jiri karaan yani la damqaday kula dareemi kara xanuunkaa soo martay raban inay ku caawiyaan inay kula soo xiriiraan rajeynaya صح hadda meeqaa joogtaa Nairobi 15 maalin 2 usbuucaa joogtaa 15 maalmood gabadhan la joogtaa gabadhan aan noolaa ehel kale ma lihid ana ehlaad ahaan had gabadhan la haystaa ane okay se u nooshiina oo maad ii danqanaysa والله iska caadi leh ridwaano Aha. nolol sida iska caadi yaa la joogtin idinka anaa lay qabaa horta okay Mhm. intaad degantaadi haa markii hore baa degnayd miyaa markaa Soomaali aadaysay haa qaraabo salaam baa u tagtay haa waa degnaa hooyaa iga yara xanuunsataa aade okay Mhm. soo gabadha aday kula joogtaa haa maraa dhehayso waa isdilaa iyo axs maxaa ahayn haa waa isdilayaa oo balkoonka iska tuuraya adig stress baasaa ku furan okay qof support kariya xataa oo $50 ku sii xataa ma haystid maya Maayo. ma haysato yaa ka bixiyay transportka markaa xamarka soo tagaysay intii maanis gaariyaa soo raacdeen miyaa haa gaariyaa soo Ii kale raacay iga hooyo bixiya. iyaa kasoo bixiyeen lacagta iyo walaalihii yaa kasoo saareen number ma qaadata adi haa number safarku ma haystaa haa okay numberkaagan kuu qoraaya haddii jiraan oo kale dad kaa caawin karo dad ingiriiska jooga oo kale inuu dadka sheekada ay dhegeysteen mogtahay صح inay fahmaana laga yaaba ay isdhahaan waaw waa caawin karnaa gabadha صح oo I don't know qofka haddii hal mar meesha ku dhasho waxaan aaminsanahay inuu xuquuq ku leeyahay xagga citizen wax badan waa soo joogtay ilaa 12 sana soo joogto samay haa marka haddii jiro qof xagga joogo UK ha noqoto qof maybe safaaradan UK ee Nairobi joogo oo kale maybe barnaamijkan dhegeysanaya oo kale صح oo isleh inuu ku caawin karo maybe inuu kula soo xiriiro صح meel uu kaala soo xiriiri karaa rabaa numberkaaga u qoraynaa qof kastoo kula soo xiriirin anaa ila soo wadaagaysaa dad waxaa jiraan iska yani scammers oo okay ayagoo ku caawinayno oo kale in wareysi ay qaadan maya dhib kale kuu geystaan صح ama isla dadkan ka xun hadda sheekada ay wadaagto waxaa laga yaaba inay iskaa dhigaan dad ku caawin kara mogta صح marka ani naftii waa ku caawinaya marka numberkaa sheeg nabarkii kor ana kama aqaani okay u fiiri sidoo kale intaas in lagaa caawi ma ahan maadaama haddee gabar Soomaaliyeed dulsaar ku tahay haddaa qofkii rabo in si kale kuu caawiyo oo kale kula soo xiriiri karaa okay waa kana zeros ayada u dhib ha oo yeerisato adiga yarso plus Aha, 25 aha, 47 mhm. 29 39 63 22 okay magacaagan waxa waaye leyla aadan xasan okay so qof kasta oo gabadha caawin karo dhanka sharciga ha noqdo si kale haddaa u caawin kartay xataa I hope in lagula soo xiriira rajeynaya okay insha allah hala xiriiro maamadan ay sheegaysay sidan kuu gashay nambar ma ka haysaa haa ma wici karnaa waa wici kartiin haddii habartaada saxa tahay maxay saas kugu gashay ayada wala I don't know weliba waxaa sheegta hooyada ay ayadana mataan yihiin Mataan macquul ma yihiin. yihiin waxaa walaahi ani waxay saas iigu gashay ma lacag kale lacagay rabtay miya inay ay qaadato muqalas aan u qaadato hadday dhan leed saas ima yeelayn soo ma nambarka iisoo foorgareeba nambarka ayaa sheegaysay habarira maybe laga yaaba in dad adeerayaashaada oo kale ama qaraabatiin oo kale si loo fahmo magacyada mar kale ma noo sixi kartaa adi magacaa ku celi marka hore leyla aadan xasan aa lagu dhahaa adi haa leyla aadan xasan waxaa ku dhalataa tiri UK london London ka xagee isbitaalka waxaas ma xasuustaa mise Central Bank isbitaal la dhahmaya haa okay goorta dhalata ma xasuustaa adi 1989 ay qoran ani xag ma kugu qorneed xagga saas ay u qoran okay marka aabaha magaciisa aadan xasan cali korneelo ahaa waagi maxamed siyaad bare reer waxaa waaye aniga daafeeda degnaa laakiin aabay daafeed ma degnin xamar uu degnaa korneel weyn uu ahaa magaciisa maxaa la aadan xasan cali okay shan caleemood waa hooyada magaceeda aamina jimcaale cali ayadan waxaa waaye mursado waa for culus waa okay habar ceene aha maamada waa ay xumaysan leedahay ee Soomaaliya ku keentan yahay isla iida le waa magaceeda bishaare jimcaale cali maamada haa soo adii lahaa caasho may caasho tawatan isoo celise tan ku soo celisaa sheegaya aha tan isoo celise caasho jimcaale cali waa intay joogtaa tan isoo celise
london hadda degan tahay saa maqle intaas xasuustaa had information ah haa soomaalina waxa lagu keenay 2001 2001kii yes okay ilaa haddana waa joogtay meel hadda noo joogo intee ka joogtay marka xamarka madiino Aha. macmacaanka waa ka joogo I hope in lagu caawiyo insha allah maamada nambarkeeda ii soo dir markaa waa kuu soo diray ilmahaaga ma waxaysta aad iyo aad ma la hadashay saa u soo baxday mise may meela kala hadlamaysta السلام عليكم. waalaikum salaam ii waran فيعن maama casho xaalkaaga ii waran waa fiicanta soo maa فيعن الحمد لله. maasha allah nin ridwaan la dhahaa kula hadlaayo